wasiirka arrimaha dibadda dalka Malawi Eisenhower Makaka ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa iyadoo garoonka diyaaradaha Hargeysa uu ku soo dhaweeyay dhigiisa Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faradsoon iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Somaliland. intaas kadib wasiirka arrimaha dibadda Malawi iyo wafdiga uu horkacayo ayaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada waxaana qaabilay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. madaxweyne Biixi iyo wasiir Makaka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo isdhexgalka labada bulsho. madaxweynaha Somaliland waxa uu wafdigan reer Malawi u sheegay in Somaliland aanay wali Afrika iyo dunida kaleba ka helin aqoonsi caalami ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Malawi ayaa si weyn ugu mahad celiyay dawladda iyo shacabka Somaliland isagoo xusay in si miiqaam sare ah loo soo dhaweeyay wafdigiisana uu hogaaminayo. Malawi waa dal ku yaala koonfur bari qaaradda Afrika isagoo xorriyadda ka qaatay boqortooyada Ingiriiska 6 bishii Juulaay ee sanadkii 1964. dalkan ayaa waxa dhawaan booqday wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan inkastoo aan loogeyn waxa isla qaateen mas'uuliyiinta dalkaasi ee uu la kulmay. Somaliland ayaa muddooyinkii dambe si xawliya u waday xiriirada ay la yeelanayso dalalka kala duwan ee caalamka. toddobaadka aynu soo dhaafnay madaxweynaha Somaliland ayaa safar ku tagay magaalada Nairobi halkaas oo ay kulan ku wada yeesheen dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo dawladda Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya. socdaalkan uu maanta magaalada Hargeysa ku yimid wasiirka arrimaha dibadda dalka Malawi ayaa loo dhagtaagayaa saameynta uu yeesho. sidoo kale Taiwan oo ay hore xiriir u wada sameysteen Somaliland ayaa isla maanta waxa uu madaxweynaha Somaliland qaabilay wakiilka Taiwan u fadhiya Hargeysa iyadoo laga wada hadlay xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dhinac. sidoo kalena kulankan waxa diiradda lagu saaray hirgelinta mashaariicda horumarineed ee hore labada xukuumadood uga wada hadleen, hirgelinta deeqaha waxbarasho ee Taiwan siiso ardayda Somaliland iyo sidii Taiwan ay gacan uga geysan lahayd inay Somaliland hesho tallaalka cudurka COVID-19. Cumar Saadiq, telefishanka Sahan, Hargeysa. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee Geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronics-ka gaar ahaan electronics-ka xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. ku xidhnow Baxsane Group haqabtiraha baahiyaha bulshada. wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda. ballanteenu waa Baxsane Group of Companies.